war degdeg ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa qorsheynaysa inay hubka dhigis ku sameyso saraakiil ay kaga shakisan tahay in ay noqdaan badbaado qaran labo yaa kamid ah saraakiishaas Sani Cabdulgaab oo ay usha ku bilaabatay miyay dowladda federaalka Soomaaliya hubka ay kala wareegtay intaas iyo in ka badan ayaan soo gudbinaynaa saaxiibayaal balse marka hore waxaad ka codsanaynaa inaad nagu soo biirtaan aniga waxaan ahay deeq macalin checkay waa hagaag dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa bilowday hubka dhigis ay ku sameynayso saraakiil muhiim ah taasi oo ay kaga cabsi qabto in ay abuuraan xaaladda badbaado qaranto maadaama madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu qayb ka ahaa badbaado qaran wantaas oo ay ku guuleysteen dowladdiisa hadda xilka ka haysa Soomaaliya hadda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa amray in saraakiisha loo arko inay badbaado qaran ay abuuri karaan in xilka dhigis lagu sameeyo waxaa loo adeegsaday taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxaana la faray in uu arintan u galo Sani Cabdulgaab oo jeneraal ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayay ku bilaabatay waxa uu xirtay aaga Goboley ee degmada ah waxa uu sheegay Sani inuusan dhiibi doonin hubka gacanta ugu jiro wuxuuna ku andacoodo hubka uu hayo inuu yahay hub qabiil ay leeyihiin sidoo kale saraakiil kale ayay dowladda qorsheynaysaa inay hubka dhigis ku sameyso si aysan u noqon badbaado qaran madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa si weyn loogu cabsanayaa in shabeellooyinka oo ka bilaabayo abaabul ciidan iyo sidoo kale kala furfuritaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya si badbaado qaran loo abuuro haddii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud 15 May oo keeni waayo isbedel muuqda maadaama madaxweynaha ay ka dhimato wax ka yar 30 maalmood xaaladda Soomaaliya ayaa hadda u muuqata isdijiid siyaasadeed inuu ka taagan yahay ciidamadana waa la kala xudxudanaya waxa la bilaabay in mucaaradka ay qortaan ciidamadii dowladda Soomaaliya ay saartay dhibicda kuwaas oo aan wax mushaarac aan dowladda ka helin sabab la xiriirta ganaaxyo ku dhacay mucaaradka si weyn ayay u abaabulayaan qorshahan in ay aruuriyaan ciidamada dhammaan la saaray dhibicda amba mushaar la'aanta laga dhigay hadda Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu si degdeg ah u amray sida wararka ay sheegayaan in xilka dhigis lagu sameeyo saraakiil waaweyn Sani Cabdulgaab ayay ku bilaabatay xalana ciidamada ayaa la dul dhigay oo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya hase yeeshee si cad ayuu u diiday hubka uu hayo in uu dhiibo warar aan helnay waxay sheegayaan Sani inuu hubka u hayo jeneraal Odowa oo ay isku heb yihiin iyo sidoo kale hub asaga oo hore u haystay Odowa iyo Sani Cabdulgaab marka la fiiriyo waa isku dhari amba waa isku heb markii aan isku soo wada dumno si waadaxa Soomaalida ugu sheegnana waxa ay isku yihiin heebta la isku yiraahdo harti abgaal iyagoona dowladda federaalka ee Soomaaliya ay aad cabsi ugu qabto in Sani Cabdulgaab uu abuuri karo xaaladda marxaladda badbaado qaran labo badbaado qaran waxa kalkii hore laga soo abuuray Goboley haddana waxa uu dareemay in badbaado qaran laga abuurayo isla Goboley balse Sani Cabdulgaab oo haysta ciidaman aan caadi ahayn ayay dowladda Soomaaliya u bacdhigi weysay in hubka ay ka xayoobiso sabab la xiriirta in uu sameyn karo badbaado qaran dowladda Soomaaliya dagaal ma aysan gelin laakiin ciidamo dowladdu ayay sameeyeen oo dul dhigis ah balse Sani ayaa sameeyay bandhigta ka duwan Goboley waxa uu ka sameeyay dhaqdhaqaaq weyn indhahana waa lagu hayo waxa dhici kara dagaal ma uusan qarxin laakiin xaaladda ayaa u muuqatay mid lagu cabsan gelinayo Colonel Sani Cabdulgaab kaas oo haysta ciidamada aan caadi ahayn saraakiil kale ayaa lagu wadaa in hubka dhigis lagu sameeyo waxa kamid ah in lagu magacaabo Masdil oo kaaraan ciidaman aad u xoogan ku haysta balse asaga ah gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe ciidankiisa waxay ku sugan yihiin degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir iyo sidoo kale deegaanada uu ka soo jeedo ee Raagaceele dowladda Soomaaliya xogo waaweyn ayaa heshay sida wararka ay sheegayaan ciidankaas waxa loo diyaarinayaa badbaado qaran labo haddii xaaladda Soomaaliya ay dhinac u jiheyso weyso macada ilaa iyo hadda tilaabada xigta iyo sidoo kale sargaalka xiga amba generaalka xiga ay dowladda Soomaaliya weerar ay ku qaadi doonto hubkan ay ka xayuubi doonto hore Cali Xubiye ayaa hub loogu qaaday asagoo ku sugan Liido waa la ismarna hawaabiyo dowladda Soomaaliyana waa ay ka meereysatay balse markasta waa la qiyaasay in Sani Cabdulgaab Masdile xaadoole oo dowladda cabsan in dhamaantood
ay yihiin kuwa xigi kara ee laga qaadi doono hubkooda. inkastoo xildhibaan xaadoole uu aaminsan yahay dowladda federaalka ee Soomaaliya haddana wax walba waa isbedeli karaan. Sani Cabdulla Gaab waxay u aragtaa dowladdu in caqabad weyn uu ku noqon karo marka la fiiriyo waxa soconaya. Sheekh Shariif Sheekh Ahmed oo ah hogaamiyaha ugu weyn ee dowladda Soomaaliya ee aad ay kaga baqayso ayaa laga ilaalinayaa Shabeellada Dhexe inuu ku soo dhiso ciidan ka hor yimaada dowladda federaalka ee Soomaaliya marka la gaaro 15 May. balse xogta saxda ah ayaa in mucaaradka ay abaabuleen ciidamadii la saaray dhibacda kuwaas oo xitaa mucaaradka lacagaha mushaarada ay u ballan qaadeen iyaga oo ka duulaya in nidaamka uu sii joogo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud haddii aan la aadin doorasho. aan ku soo laabano xaaladda ciidamada la rabo in hubka laga qaado amba saraakiisha la rabo in dowladda Soomaaliya ay hubka ka xayuubiso. tani waxay noqon doontaa culays siyaasadeed iyo sidoo kale xujo hortaale madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. balse ilaa iyo hadda dowladda talaabtii ugu horeysay ee qaaday waa lagu guul dareystay. dagaal ma dhicin, sanayna hubka lagama soo qaadin, laakiin dowladdu way ku tulu jirtay marka la eego wararka soo baxay iyo sidoo kale ciidankii la dulgeeyay Sani Cabdulla Gaab kaas oo ah korneyl ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya. asaga odawaa iyo sidoo kale Masdile Xaadoole Cali Xubi oo horhol xubkii dowladda Soomaaliya ka qaaday iyo saraakiil kale oo badan oo tradisho oo ku duriyo ayaa la rabaa hubka gaarka ay hayaan in dowladda Soomaaliya gacanta ay ku dhigto si taliya ciidanka xoogga dalka loogu wareejiyo. balse waxaa sidoo kale qayb ka waan rabnaa inaan idin xasuusino nin lagu magacaabo Jacfar oo dowladda federaalka Soomaaliya mucaarad ku noqday ka soo horjeestay. iyaduna waa dhinac kale inkastoo deegaankiisa dagaal aad u culus oo ka socdo gaar ahaan degmada Daynile ee gobolka Banaadir maalmihii u dambeysana waxa ka socotay dagaal u dhaxeeya ciidamada dowladda iyo sidoo kale dadka shacabka oo diidana in guryahooda la boobo. xaaladda Soomaaliya hadda waxay u muuqataa mid saraakiishaas ay is arursan karaan badbaado qaran labana ay sameyn karaan, laakiin madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya oo u muuqda inuu ka hortagaya ayaa bilaabay in saraakiishaas ciidamo dhoolatusa la duldhigo. ilaa iyo hadda si sax ah ugu hadlin arrintan taliyaha ciidanka xoogga iyo sidoo kale wasiirka gaashaandhigga oo xaaladahan oo kale markay yimaadaan warbaahinta soo hor istaaga. Axmed Macalin Faqi oo hadallada caanka ku ah ilaa iyo hadda kama hadlin go'aanka Sani ciidamada loo dulgeeyay diidmada Sani Cabdulla Gaab odawaay oo ka hadlay. intaas oo dhan marka la isku daro dowladda Soomaaliya waxaad moodaa go'aankan in ay qorsheeyeen inay soo abaabuleen laakiin oo suurogeli waayay. badbaado qaran laba haddii la sameeyo maxaa dhici kara? badbaado qaran laba hadda haddii la abuuro amba badbaado qaran 2 haddii lagu abuuro madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa guuldarro kale oo soo wajahday madaxweyne Xasan Sheekh. hadda wuxuu lumiyay taageeradii shacbiga madaxweynaha ma hayo taageero shacbiga madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud marka laga eego dhulalka la jabshay amba dadka Soomaaliyeed laga barakiciyay dhammaan way ka soo horjeedaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. taageero shacbiyeed ayaa si toos ah ugu dhuntay madaxweynaha, balse wararka waxay sheegayaan madaxweynaha inuu haysto la taliyaal aad u xun oo madaxweynaha si fiican aanu ula talin markay joogto xaaladaha noocan oo kala. hadda dhulalkii Muqdisho dhulal sharciya ayaa la burburinayaa dadka ayagoo waraaqada haysta ayay warbaahinta maalin walba ay ka cawdaan. tani waxay noqotay fursad ka luntay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, balse waxay fursad u noqotay dhinaca kale mucaaradka. waxayna soo dhaweeyeen mucaaradka dadka guryaha laga jijibiyay iyo sidoo kale kuwa dhulboobka saxda ah dowladda federaalka Soomaaliya ay ku sameysay intuba. Xasan Sheekh Maxamuud laba ajenda waaweyn oo beerdareeyay. mid waa taageerida shacbiga iyo sidoo kale mid kale oo ah dhaqaale xumada ka jirta gudaha caasimada Soomaaliya ee Muqdisho. baahi iyo shiid xoogan ayaa ka jira. tanina waxay noqotay fursad kale oo shacabka ay ku nacaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. la taliyaashiisa ayaa u meeriya buug asaga uu ku qanacay laakiin aan dhaafsiisanayn afka barkiisa marka ay joogto waxa ka soconaya caasimada Soomaaliya ee Muqdisho. saraakiisha ciidanka ee dowladda federaalka Soomaaliya bartilmaameedka ka dhiganaysana waxay ayaga qudhooda qayb weyn ee ka yihiin dhibanayaasha caasimada.
marka la eego dhinaca dhaqaalaha marka la eego guryaha la jijibiye isku soo wada duub hadda xasan sheekh maxamuud wuu fahmay in badbaado qaran laba la abuurayo balse wuxuu u muuqdaa mid ka hortagayo hadiiba ciidaman oo dul dhigayo saraakiisha ugu sarreysay ee dowladda federaalka ee Soomaaliya